Waxaa jiray wiil dhalinyar ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar uun noqdo qof guulaysta, balse ma uusan garanayn sidii uu u guulaysan lahaa. Waxa uu doonayay inuu guul gaadho. Maalin ayaa uu la kulmay oday waayeela oo waayo arag ah, noloshana wax badan ka soo arkay. Wiilkii odaygii waayo aragga ahaa ayaa uu la sheekaystay. Xoogaa kadib ayaa uu weydiiyey su'aashii maskaxdiisa ka dhex guuxaysay ee ahayd, waa maxay sirta guushu? Ninkii odayga ahaa waxa uu ku yidhi wiilkii, waan kaaga jawaabayaa ee aan berri isugu nimaadno qarka webiga. Sidaas ayaana lagu ballamay oo lagu kala tegay. Maalintii ballanta markii la gaadhay ee labadoodiba soo xaadireen webiga, ayaa ninkii waayo aragga ahaa waxa uu ku yidhi wiilkii, inakeen aan biyaha galnee. Biyihii ayaa ay galeen. Markii ay bartamaha webiga gaadheen ayaa ninkii weynaa madaxa ka qabtay wiilkii yaraa, isaga oo hoos biyaha ugu riixayo. Wiilkii xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa ay indhihii casaadeen. Wax yar kadib ayaa uu sii daayey. Wixii ugu horreeyay ee uu sameeyo wiilka yar markii la sii daayey waxa ay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado. Ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey, markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa kaa hayay, maxaa ay ahayd wixii aad ugu jeclayd inaad hesho? Wiilkii ayaa ugu jawaabay, waxa ay ahayd hawo si aan u neefsado. Odaygii ayaa ku yidhi, haddaba su'aashaad shalay weydiisay jawaabteedii waa tan. Waxa aad doonayso inaad ku guulaysato ilaa aad u raadiso sida aad u raadisay hawada marka aad biyaha ku dhex jirtay, kuma guulaysanaysid. Sirta guushuna waa taas.